السلام عليكم اسكو نقدو ناكسن شانلك وشانل كيمي شاني بيوتي maxay hadan maanta waxaan rabay in waxaan ugu soo noqday in aan ka yar haldo aan ka dhibto fikradeeda amba wixii aan ka qabo san wax u arkayo en hawsha ka socota imika en wiilka la dhaho Lieutenant Fuad Yusuf Ali inakaasoo ku xidhan dadka reer Djibouti ahaan sad u fahantaan waxa weyn wiil ahaanaya pilot oo dadka diyaaradaha kiciya ah oo maxaa la dhahaayay Djibouti ku xidhan imika oo maxay hadanay yaan rabay inaan hawshiisa ka hadlo aan khaas ahaan waxaan ku dul dhacay adiga video gabadh ooyeysa oo rabay inaan yar falaqeeyo iyo aan ku xigsiiyana laba video uu ka hadlayay inakaas isaga qudadiisa Fuad Yusuf Ali uu ku hadlayay hayna bilaamato السلام عليكم دانك فالا maanta waxaan rabay inaan kaga qayb qaato dhacdada ka socota Djibouti imika baraha bulshada sida Facebook aad uga hadlayaan iyo YouTube-ka oo maxay hadanay ku saabsan wiilka la xidhay maxay hadanay aabo 7 awlaad leh oo xidhan oo maxay hadanay xaaskiisii hooyadiisii iyo dad badan ay u hadlayaan oo baraha bulshada lagaga hadlayo hadaba intaanan isaga aan videoyadiisa aanan gaadhin oo dhowr shay ka oran waxa jirta gabadh baan maanta ku dul dhacay videogeyga oo aad wallahi aan oo keenaba inaan horta videogan aan sameeyaba iyada igu qasabtay sababtoo ah gabadhaasi ila daawada horta waxay tiri talkaya way isaweyno ku away talaye isaweyno ku away wixii caadaya maanta ceeba la yiri arinu way cuslaatayo suucadaada baa la yiri talaye isaweyno ku away يا الله إله قرقار يا رب يا الرحمن إله هذا وين واحدة يا ربي madila aragteen gabadhaas sida u arkaysin way ooyeysay kolka waxay ku heesisay hees tolla ayay maxaa la dhahaayay Ciise aaway waxa weyn wiilka Ciise ah qoladiisu yahay maxaa la dhahaayay videogaas wallahi aad baan horta ani dhibaataysay sababtoo ah waa waxa qoloqolada sad ogtihiin aniga channelkayga hadda la socotiin waa waxaan la aan rabo inaan maxay hadanay aan iska bedilno waa waxyaabaha xun ee Soomaalideena aan leenahay horta inaan iska bedilno aan rabo waa sida ahaan waxaan u leeyahay videogaasi si khaas ahaan aan ii taabatay oo aan ka iraado walaasheedii tol in loo yeedho way fiican tahay ma waxa jiro meela ayna tol ayay tolkay wa aynan ku habooneyn oo ah imika waxaan joognaa wadanan dhex joognaa wadan xeerarlan dhex joognaa ogahay ina qosli doontaan oo doonaysiin tani halkay ku nooshahay mesela laakiin walaalahaygiyo waa run aniga waan iska la socdaa Djibouti waxa ka socda ma waa inaan isku dayno confess un peu semblant de wadan socda inaan dhisnaa rabnaa kolka inagu hadaan iraano tolla ayay sidii aan baadiyo joogno waa waxaan kaga hadlayay videogeygii hore tolka iyo qabiilka baadiyahan kaga imano baadiyaha ku qurux badnaa baadiyaha ku kala socday baadiyaha lagu isticmaali jiray halkan wadan inaan dhisnaa rabnaa waxaan rabnaa wadan qof walba ku ceeshi karo qoladu doona ahaado maxay hadanay in walba kala wado xeerku u kala wado ayaan rabnaa inaan dhisno sida ahaan baan u leeyahay tolla ayayda ani way dhibtay waa ogtihiin wadankeen waa wadan inaan dhisno u baahan oo dhismihiisu dhaneyn sidii aan calanka u qaadanay kalba wax yar lagu bedeli karo kalba wax oo inagu inaan bedilna ay tahay aan ka dhigno wadan xeer socdo oo tollo ayayda la iska dhaafo waa ogahay saan u sheegay wadankeen waa wadan lagu qaybtamo wax kasta tol
ma inaga shicib ahaan waa ogtihiinna waxaas inuu waxba noo tarin inuu nolosheena waxba ka bedilin wuxuu ka dhimo mooyaane kolka maxay heedeen waxaan jeclaan lahaa inaan u fikirno sidii aan idhaano xeerku muxuu yidhi baske maanta adduunkan xeerkii allah hadduunan dadkii aqbalayn oyna kala wadayn xeerkeenii baadiyihiina inama kala wadayo daxiisu xeer bayba leeyihiin caadi ahaanta oo maxaa la dhahaye taasina magaalo ma socon karayso baske dadaanan ciise ahayn baa kula degan kolka xeer baa inaan ku kala socono wadan ah ayaan rabay inaan gabadha u sheego mida kale walaaltinimo ahaan waxaan rabay inaan Soomaalideena ama Djibouti-geena walaaltinimo ahaan Djibouti-geena gabadhaas oo kale hatamay ooyin hooyo kale ooyeysa baa jirta maxaa la dhahaye oo arkayay waxaan rabay inaan yar idhaahdo cadowgiina lama hor ooyo haddii uu qofku dhaawaco amba ay ku dhibo amba xoog lagu sheegto amba lagu humiliation lagu sameeyo sid hor ooyo qof lilmadaada liq afkaaga shim ilkaha geeji dhexdaada xidh meel kastoo geejin karta geeji doondoono solution doondoono sababta waxaan dhibaatadana jirto wuxuu leeyahay maxaa la dhahaye problem kastaba solution buu leeyahay dhibaato kastoo timaada xal buu leeyahay amba diiniyan ha noqoto amba xeeriyan ha noqoto amba caafimaad ha noqoto amba dhaqaale ha noqoto adi wax kasta waa problem alla ma sameyn problem aanan solution lahayn kolka oohinta hala daayo se wax loo qabsada hala idhaahdo cadowgaaga looma jabo lama hor ooyo laysma hor tuso lama qayliyo Djibouti aan waxaan rabaa inaad sheegtaan dhacdadii waxaasaa dhacay ha ooyina ha calaalina ha odhanina ilaahay ka baq qof politiga ilaah kama baqayaan haddii dadku ilaah ka baqayaan adduunku sanba ma ahaadeen nimcad iyo baraadaan ku noolaan lahayn oo qof walba allihiisiyo aakhiradiisu u cabsoon lahaa kolka oohinta daaya maxaydan tolla ayagana daaya baadiyiin waanu ka imanay han la qabsano magaalooyinka socdaan han dhisno wadan xeer leh inantaas halkaas ayada kaga baxaya haddaba waxaa soo haray laba video baan arkay oo inanka Fuad Yusuf Ali uu ku hadlayo isaga afkiisa ku hadlay iska soo duubay ka u horeysa wuxuu waa video ki date de mars waa video uu duubay bishii saddexaad maxaa la dhahay isagoo dhex fadhiya diyaaradii uu ku shaqeynayay ayuu dhex fadhiyaa YouTube-kaad ka heli kartaan waana nutusi in yar aynaga tusi diyaaradda kolkuu ku dhex jiro wiilku horta wuxuu ku bilaabay inuu isagu sharaxo uu sheegay ciduu yahay wuxuu ku xigsiiyey dhibaatooyinkii uu kala kulmay 10 sanadood uu shaqeynayay dawladda amba maxaa la dhahayay armeeg dalaaqka uu shaqeynayay iyo dhibaatadu ku hayay sheefkiisu dawladda mu oran sheefka buu 10 sanadood dhibaato ugu hayeen halkii dawladdu soo dhex gashana waxa weyn cid wax ka qabanaysa ma jirto buu way iska daawanayaan qofkii iyuu sheegay adu waxyaabo uu sameeyo xun oo dhan uu sheegay wuxuu yiri waanu ka qornay wixii xeer ahaa wuxuu yiri oo kale waanu tabinay wax laga qabanaya ma jirto wuxuu yiri ninkaasyo oo ah qof qoloqolada isticmaala isaguna oo dadkii qoloqolo u kala jajabiyay dadkii meesha shaqaalaha uu xakumay waxay ka dhigan tahay keligii maaha dad badan waxa ku sugan wuxuu Fuad soo maray dad badan ku sugan oo ku jiray ka dhigan tahay ani halkaas waxaan saa ka dhadhamiyay sheekada haddaba Fuad wuxuu ku xigsiiyay inuu dadkii shicibkii la hadlo oo iraado shicibow shicibow dhibaatadan nihaysata iyo adu wuxuu ka hadlay Djibouti dadku waxay ku jiraan xaaladooda isagu sidoo arkayade una sheegay inay tahay wax lagaga bixi kara halka kali haate lagaga bixi kara ay tahay ina hub la qaato ina la iska rido la iska dhiciyo ayuu sheegay wuxuu kale sheegay wiilka isagoo ku sii socda hadalkiisi inay maxaa la dhahayay uu isagu videogaas ayaanta uu duubay filimkaas ayaanta duubayay maxay heedan ay kaga dhan tahay uu baxay
u socday kolka meel uu tagay meel uu baxay muu sheegin sidoo u baxay muu sheegin ayaa wada Muhammad sheegin hadaba halka waxbaan rabay inaan iska dul saaro hadaba waxa jirta wax la ilaahdo amba communication ka sad wax u tabinaysid waa ina iska saxdid sababtoo ah maanta hadii aan aniga dawladda ku jiri lahaa oo qof sidoo inakaas u hadli lahaa waa run waxaad ka maraysaa xeer ugu xun baad ka maraysaa si xun u la dhaqmaysaa sababtoo ah maxay hadana wuxuu u yeedhay dadkii inay kacaan inay hub qaataan iyo inuu isagu baxaayo kolkaad kelimada isticmaalaysan halka waxaan uga jeedaa dadka maxay hadana sidiisa amba Djibouti dhibaataysan kelimaduhu waa maxay hadana waa quwad kelimadaada dooro kolkaad wax sheegaysid sida ahaan waxaad u baahantahay adigu waa dhibaataysanta waan ogahay adiga cara wax ka siin karto waan ogahay adiga shaydaanka ku qaadi kara waan ogahay waa laga gardaran yahay saad wax u sheegto waa wax aad u xun waxa kugu dhacay oo waa laga gardaran yahay intaas oo sanadood lagu la isticmaalo ma ahayn kolka waxa weyn waa ina raadcaysataa qof communication-gaaga ku hagaajin kara waa ina raadcaysataa kelmadahaaga ka fikir kolka hadlaysid waa ina ka fikirto baaska kelmadahaas imika ana proof ay ka dhigan karaan dadku waa lagu cadaabi karaa amba way argagax buuba qofkii ka qaadi karaayo waan baxayaayo kale sidoo baxalka baxaysa hagee tagaysa ayuu u tagayaa ayuu la shaqaysanaya ayaa wax kasta iman kara ma ogtahay kolka kelmadiina xisaabiya kelmadaad odhanaysid xisaabso videoga kale labaad maraba inaan ugu dheeraado sheekada waa video uu ku soo dhex sameeyay kolkuu ku dhex jiray gabood imika ayuu soo sameeyay waa videoga aad ugu ooyisiisa hooyooyinkan hablaha oo dhan ee dadkii oo dhan dhiigooga dhaqaajiyay waa video laga xumaado waa video dadnimada ka baxsan sida loola dhaqmay laakiin aan waxaan rabay horta inaan ka iraahdo videoga ma wada daawan بس كدميركيغو يسين واي والله إنان داودو أون دمايستيرو وإسين واي إنتي يريدو أوهو الرئيسي ومان كدقايستي دميركيغو نيماسيني ضدنماديدو نيماسيني سمسكحديدو نوحي قادي كاريسا ماها ووح أن أدوغا قيرون يسيد ووح قرال هذا ووح أدو فرحن kolka waxaan rabay inaan idhaahdo maxaa la dhahaayay videogaas inaan ku sheegay hadana dibtii soo maray uu dib uga sheekeeyay wuxuu yiri waraaqadan sameynay wuxuu ka sheekeeyay sidii loo bahdilay sidii waliba inakaas u bahdilay sidii u dhibay sidii salaarkii uga goostay sheeyal yaaba weeyaan maxaa la dhahaayay sidii ugu dulqaatay sidii uu aamusay imisa sanadood amba imisa muddo sidii gurigiisa ninka ugu tagay uu bariyay isku hor bahdilay ciyaalka awgeed iyo koraan la'aan awgeed ayuu yiri kolkaan joogo aniga wallahi waan iska gooyay videogii waan iska xidhay waan qaadan kari waayay waxaan u qaadan kari waayay waxaan rabaa inaan iraahdo dadka kale tan way dhacday ma dadkeena kale ambaba inakaas kol labaad hada wax ku aan lahaayeen inaan horta ha qarsanina waxa la qarsado uu ku qarsadaa dhibaato lama qarsado ceeb ma ha dhibaatadu qof waliba sida ku bahdilaya kugu taagtaasay oo kugu taaqtaaqay oo kugu dhibaya oo xeerkaagi dadnimo iyo bini'aadamnimo aanan ixtiraamayneedba haw aamusin kolka dhibaatooyinka saa ay dhacaan kolka soo dareentiin ba reer Djibouti kolka wax yar dareentaan wala photocopysta privada wala iskaneeya internetka lagu dirtaa internetka waxaad gishitid emailada dib u helaysaa USB-yada qaata maxaan wax kasta isticmaalo oo shicibkaaga isku horbahdil kolkay bilaamataba dhehtana laygu hayaa sidana dhacdo wad arkaysan imika dadku waa maxay hadan dadku wax bartaa ku badan shicibka Djiboutiyaanka maxay hadan in wax la qabta la isku day in laga dhiidiya la isku day in aan baba la socono oo warkaan raano de war wallahi ka joogsada qofkaas bilaadan mid ka baxsan tahay ma wixii intaad khabiisid ku noolaat ay qarsatid afkiisa videoga inanku wuxuu ku yiri ana maxay hadanay waan qarsanay cadowgaagu inuu fahmin ayaa ku cadow ma jaarka cadow ma tolkaaga cadow ma dadkaaga cadow ma faamigaaga cadow ma asxaabtaba cadow dadkaas ma cadow
kolka waxaan uga jeedaa inaad kolka waxni soo gaadhaanba aad bilowdaan inaad tiraahdaan waxaas ay haysta dadow oo jaararka tolkanaad imika loo ooyayo kolkaasaa lagu garaacaa kii avokaya laga dhaha warbalila arag dhibaatadaas ay haysatee kii aan garanayo xeerka droit de travail weydii kii kale aan garanayo appareil maxay hadane askartu siday u dhaqmaan xeerarkooda kadishkooda ku waxaana kii communication garanayo qoraalka ku fiican diplomaasiga amba waxa garanay sida wixii la oran waxana la oranay kaasa loo garaaca jaarka u garaac asxaabta u garaac dadka u garaac war dhibaatadaas ay haysto waa saarleelkiba laga gooy waxaas ay haysta intaadna adigu qarxin sidii baambadi intaad qarsatid hooyada iyo dadkaaga dumarku war dumarka aan u sheegan dadka kale u sheegta oo dhaha maxaas ay haysta xilliga doondoon avoka intaadna qarxin aad oran waan ka tagayaa hubban qaadanaya u sheeg dadka avoka raadayso waad raadacaysan kartaa adigo avocado wala wada leeyahay dukan qofka waad ka qabsan kartaa lacagtaada ku goysa intaad maxay hadan waan dhageysto hooyadaayo la gurigiiban u iibiyay san u biiliyo waxa laga gooyay salaarki war waxa intaad maraysiin xajisanina dadka la qaybtama dhahataasa ay haysta ceeb maaha waxa eeba ina qof dulliya oo waxba fahmin oo jaahilnimo ka tagaya oo kibir iyo maxay hadanay an kibir iyo an isla weyni oo aqligiis waxba ahayn oo kugu tumana raganimadaada u doonay inuu bahdilo oo ciyaalkaaga uu ka dhigo bila aabo intaad heer ka gaadhin la soco hadda sheegta halkaas ay xanuunaysa waxaasaa jira halkaas laga kolka alishay dadkii ay wada hadlaan wad arki doontaan idinkuna wad nafisi doontaan maxaa la dhahaayay anaguna dadkii qazooyada ku jira waa la sii wada tatabini oo hay inaka waxaasa ku dhacay baa la odhani kolka waxa weyn oo kolkaas ba la radcaysta tolka wixii wax garanay asxaabta wixii wax garanay wari caawiye waxana jiray hadii lagu caabin waayo ha kolka walaalahaygi waxaan rabay inta iniga aan ka dhibto fikrad ahaan imika haatana waxaan jeclaan lahaa dawladeena inayna maqasho ay iska soo siidayaan ay maxay hadeen iska soo siidayaan ay ciyaalka aaboodu soo siidayaan fadlan u soo siidaya salaamu calaykum iska soo noqoto wanaagsan like partager subscribe sa rabtaan ان هدونا اني عجبنا ساعدها كومنتيga haylaawina maxaad idinku ka qabtaan sid wax u aragtaan hoosta ku soo qara waan akhrisan doonaa inii soo jawaabi ani bila jawaab kuma daay dadka badanka hadaan waxba haleelin mooyane kalka salaam alaykum